dadka reer sool iyo gobolka cayna inay noqonayaan wadadii xasan danihiisa ku gaari lahaa inay u qorsheeyeen nimanka iyaga ah oo firdhiye iyo timacade iyo cali xoosh iyo inta la socota maartay inay tahay laga dhigayo dadkan xaabadii xasan shidan lahaa in laga dhigayo danahooda aan laga hadlayn muxuu ahaaye waxa laga hadlaya microphonkii la yimaadaba waxaa laga hadlayaa xasan sidaynu usoo saari lahayn iyo xisbiga xasan inuu galay firdhiye waad arkaysa inuu xamar markuu tegey xisbiga xasan iska diiwaan geliyey waad maqlayseen maaragtay in lagu celcelinayo dhammaantood ay ku celcelinayaan xasan aan soo saarno abaal buu ina gashaday abaalkii abwaan wuxuu yidhi abaalkii xasan ina gashaday rag abaal gudaan nahay waa soo celinaynaa abaalkii kulanti wanaagsan saaxiibayaal war degdega waa Puntland oo jawaab culus ka bixisay hadaladii shalay ka soo yeeray Cali Xoosh wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya gudoomiye xigeenka labaad ee aqalka sare Timcade iyo Garasoofe waxaa afka furtay goordhow wasiirkii warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydi Dirir dhinacyo kale hor la ayuu weeraray iyadoo uu leeyahay ragga qaar ama qabaa'iladii qaar magacyadii ay bedesheen hadaba waxaan soo gudbinaynaa shirkan jaraahid ee xasaasiga ah ee Puntland dhankeeda ka soo baxay adiga sabaxay kula taa ugu horeyn ka aragti dhiibo falaqayta arinta qaybta hoose nugula wadaag fariinta meel dheer gaarsi halkan ku soo biirsi aad waa xogaha degdega ah dadweynuhu inay isweydiiyaan horta xasan muxuu inagu darsaday xasan aan baa u abaal gudnay abaal uu inagu leeyahay ma jiraan waxa uu inagu darsadayna ma jiraan ragga u ololeynaya oo maartay soo gaarsiiyay mikrofoonka markay qabsadaan inay yiraahdaan abaalkii xasan baynu gudaynaa hadda rag haybtooda ay bedeleen waxaan u jeedaa nimankaasi maxamuud hiraab inay la baxeen nimankii la oran jiray maxamuud garaad inay maxamuud hiraab la baxeen aaran hiraab inay la baxeen aynu ku bilownay saaxiibayaal iyadoo maalintii shalay ahayd laascaanood uu ka hadlay rag ama ay ka hadleen rag uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha Cali Xoosh iyo sidoo kale gudoomiye xigeenka labaad ee aqalka sare ee Soomaaliya Cabdullaahi Timcade ayaa waxa ay raggaas ku baaqeen in reer waqooyi bari maadaama maamul loo dhisay dawladdiina abaal ku leedahay laga rabo in ay ka difaacaan waxa ay ugu yeereen cadawga ay leedahay dawladda Soomaaliya oo Puntland ay qayb ka tahay ragga dagaal siyaasadeed ku qaada difaac u noqdo dawladda arrimahaas uu kala hadlay Cali Xoosh sidoo kale Garasoofe ayaa isna hadlay shalay isagoo yiri hadii dadku heshii waayeen nin kastoo faraskaaga fuul haddaba Puntland ayaa arinta gaashaanka u darwartay iyadoo goordhow uu warfidiyay kala hadlay wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydi Dirir mid ayuu jawaab u siiyay isagoo dul istaaga mid kasta qodobkii uu ka hadlay isagaan isla daawanaynaa si dhameystiran alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina Maxamed sallallahu alayhi wasallam maanta oo maalin talaada ah taariikhda bisha September ay tahay sanadkii 2025 radio Daljir iyo Puntland TV labadiinaba imaatinka aad igu timaadeen xafiiska wasaaradda isgaarsiinta warfaafinta idaha iyo dhaqanka dalxiiska dawladda Puntland aad baad u mahadsan tihiin waan idinka mahad celinayaa maartay wacyigelinta iyo waranka dadka reer Puntland hadalkan maanta wuxuu daaran yahay waxaad maqlayseen maalintii shalay ahayd dhowrkii bilood ee u dambeysayna lagu soo celcelinayay cadawgaa jooga Puntland shalay waxaan u malaynayaa inaad dhegaysateen hadalkii wasiir Xoosh iyo hadalkii gudoomiye senator Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade oo ku celiyay labaduba ku celiyay mucaaradkii dawladda federaalka baa waxay joogaan Garowe jooga waxaa la doonayaa inaad ka hawl gashaan oo dagaal siyaasadeed gashaan oo dawladdii dhexe abaal bay idinku leedahay oo aad u abaal gudaan oo aad cadawgeeda la dagaalantaan oo kuwa xamar jooga ee mucaaradka kuwan aad la dagaalantaan dawladda Puntland iyo dadkeedana aad la dagaalantaan runtii aad iyo aad baan uga xumahay waad maqlayseen oo kale raggii musharaxiinta sheegtay oo Jamaal ka mid ahaa hadalkiisa waxaa ka mid ahaa Puntland dawladda federaalka ay diidan tahay sidaas awgeed baan ula coloobaynaa colaadeeda waxaan ugu kalifay dawladda federaalka ay diidan tahay dawladda federaalku iyadaa dadka Soomaaliyeed diiday iyadaa Jubbaland ku duushay iyadaa Geda ku duushay
iyada Puntland ku duushay dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba iyada ku duushay iyada diiday dadku inay diidaanna iyada ku khasbaysa dadku inay diidaan iyada sharcigii iyo dastuurkii dadka ka dhaxeeyay meesha ka saartay iyada nidaamkii federalismka ay soo taagtay iyada dalka inay kala qaybiso oo kala googeyso ka shaqeynaysa sidaa daraadeed dadka Soomaaliyeed aragtida faasidka dami jadiid iyo xisbiga xasan ay wataan in dadka Soomaaliyeed diidaan xaq ay u leeyihiin maadaama noloshoodii iyo ammaankoodii iyo midnimadeedii ay ka soo horjeesteen waxaad kaloo maqlayseen qof kastoo hadla ama Firdhiye ha ahaato ama Cali Xoosh ha ahaato inay ku celcelinayeen abaalka dawladdu ina gashatay waa inaan maartay soo celinaa abaalka dawladdu gashatay ina wuxuu noqday in la yiraahdo hal la keeno cid kastoo Puntland ka soo horjeeda hay timaado laascaanood ha timaado laascaanood ha noqoto meel Puntland lagaga duulo ha noqoto runtii waxaan u malaynayaa arrintaasi inay majar habaabin tahay dadka shacabka ah oo maartay reer laascaanood ama gobolka Sool ee degmada Buuhoodle gobolka Cayn waxaan leenahay arrintaasi waa majar habaabin waxay u muuqdaan raggaasi oo kaliya rag ka shaqeynaya danaha xasan doonayo dadka reer Sool iyo gobolka Caynna inay noqonayaan wadadii xasan danihiisa ku gaari lahaa inay u qorsheeyeen nimanka iyaga ah oo Firdhiye iyo Timacade iyo Cali Xoosh iyo inta la socota maartay inay tahay laga dhigayo dadkan xaabadii xasan shidan lahaa in laga dhigayo danahooda aan laga hadlayn muxuu ahaaye waxa laga hadlaya microphone-kii la yimaadaba waxa laga hadlayaa xasan sidaynu soo saari lahayn iyo xisbiga xasan inuu galay Firdhiye waad arkayseen inuu xamar markuu tagay xisbiga xasan iska diiwaan geliyay waad maqlayseen maartay in lagu celcelinayo dhamaantood ay ku celcelinayaan xasan aan soo saarno abaal buu ina gashaday abaalkii abwaan wuxuu yiri abaalkii xasan ina gashaday rag abaal gudaanahay waa soo celinaa abaalkii xasan Soomaali abaal kuma leh Soomaali waa ku abaal ku dhacay madaxweynaha laga dhigay waa la doortay nin waay arag oo oday ah baa laga soo qaaday inuu yahay hase ahaatee wuxuu noqday reeriyadiisa cune ayuu noqday dadkii xamar intii joognay waa barakiciye masaakiinta ahayd maartay ciidamadii dalku lahaa oo dawladdii ka horeysay u dhiibtay waa baabiiyey al-shabaab muxuu ahaayey dhinac walba way kaga soo siqayaan intii 3 sano ka hor 4 sano ka hor laga xoreeyay oo dawladdii ka horeysay ay ka xoreysay oo gobolka Hiiraan badankiisa iyo gobolka Shabeellada Dhexe waad ogtihiin inay dib ula wareegeen gaar ahaan xasan sheekh maartay qoyskiisu intii uu degayay maanta tuulo xorey inaanay ku jirin shabaab wada haystaan waad la socotaan marka ninka saas yeelay oo dastuurkii ku tuntay oo dalkii kala diray oo Jubbaland ku duulay oo Gede ku duulay oo Puntland ku duulay oo aan maalin oranin laascaanood markay maartay bandowgu saaraa oo madaafiicda laga dhacayay oo karantadii laga jaray oo biyihii laga duqeeyay oo maartay laga xanibay meel walba go'doonka laga geliyay inaan qofku ku dhaawacma aan diiq laga saari karin maalin ma oran xabadaha laga daayo xabad baarasta ma orana ilaa ay hadda ma keenin shirarka socda ee la qabanayay waxba kuma bixinay inay qabsoomaan maartay dadka iyagu dib u buulanayay dadweynuhu inay isweydiiyaan horta xasan muxuu inagu darsaday xasan aan ba u abaal gudnay abaal uu inagu leeyahay ma jiraan waxa uu inagu darsadayna ma jiraan ragga u ololeynaya oo maartay soo gaarsiiyay microphone-ka markay qabsadaan inay yiraahdaan abaalkii xasan baynu gudaynaa hadda rag haybtooda ay bedeleenba waxaan u jeedaa nimankaasi Maxamuud Hiraab inay la baxeen nimankii la oran jiray Maxamuud Garaad inay Maxamuud Hiraab la baxeen aaran Hiraab inay la baxeen baa meesha ka muuqata waayo maartay nin kale magaaladiisii ha lagu duulo qibladeenu waa siyaasaddu waa xamar macnaheedu waxa weeyaan Soomaaliya waxay tiraahdaa ood ka dheeri kuma dhaxan tirto waxay kaloo tiraahdaa ninaan ku furi doonin iyo ku rarin xasan ninka u soo gurmanaya horena ugu soo gurmaday gobolka Sool iyo Cayn ma aha dibna uguma soo gurman doono
laakiin waxa uu ku gaarayaa waa danihiisa. Soomaalidu maaragtay inta badan maamahaha iyo gabayada waxbaa lagu cabiraa. Ninkii la odhan jiray Faarax Jeer Allah u naxariistee oo gabayay wuxuu yidhi margiye weyne awrkii maxashyoonka jiilaal lagu maalin guulaa maatada xamaalaa ka madhweyn malooliga mushtaruhu xinaystee ka macaash waleeyaan ka madhweyn malooliga mushtaruhu xinaystee ka macaash waleeya. war waxaan leenahay maxamuud hiraab iyo aaran hiraab waxaan leenahay puntland ka madhweyn maaragtay ka madhweyn waxa aad maaragtay xarxariiqaysaan dadkeeduna ka karti badan inta aad ku tuhmaysaan ka karti badan sidii hore xididada laydinku siibay baad uga maqnaan doontaan masraxa siyaasadeed ee puntland ta aad xasan ku daba joogtaanna waxaan rajaynayaa inaad iyana ku goobi doontaan. wuxuu kaloo yidhi ninkii loodhan jiray dhoodaan wuxuu yidhi ninkii rubucyo miisaama ee kiila raajiciya ninkii rubucyo miisaama ee kiila raajiciya ninkii rubucyo miisaama rubucyo waa garanaysaa intay leegyihiin ee kiila raajiciya ee rasamaalka uu helaa markuu intaa sameeyo rubuc ka hooseeyo xisaabtaa inuu dib i rogrogo soo ra'yigu maaha. ninkii rubucyo miisaama ee kiila raajiciya ee raasamaalka uu helaa rubuc ka hooseeyo xisaabtaa inuu dib i rogrogo soo ra'yigu maaha. waxaan leenahay aaran hiraab iyo maxamuud hiraab xisaabta inaad dib u noqotaan drawing boardka ku noqotaan waa idiin fiican. mujtamaca reer sool iyo caynna waxaan leeyahay waray waxaad raacdeen wax dantiinu. waa hagaag gabagabadii daawada adiga maxay kula tahay kaana aragtay kana aragtay falaqaynta aragtidaada nagula wada qaybta hoose adigoo ku qoraayo qaybta hoose ee faallada fariintan meel dheer gaarsiiya halkana ku soo biir waa Bashiir oo idin la nabadgeliyo.